الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله سبحانه وتعالى وحيلي وكور رمي سورة إسراء فطرت السورة مكة سودتي والسورة عجيبة وكور رميسا إلهي سبحانه وتعالى أبوه كيسا يمراحشها وحمران يمخلوقات كلها هواوين iyo qiyaamaha iyo isbedel inuu dhici doono oo dhulka iyo cirka isbedeli doona. Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii uu taa ka soo waramay ayaa isagoo sheegaya in xisaabna ay ka dambayso ayaa wuxuu yiri markii wax walba isbedelaan ee samadu burburto ee cirku burburo xidigu soo daataan ee baduhu ay qarxaan ayaa waxa dhici doonta Ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri alimat nafsu ma qaddamat wa akhar naf waliba wixii ay qadintay samaysay ee ay qabatay ayay arki doontaa wa akharat iyo wixii ay dib dhigatay. علماء waxay ku macneeyeen ma qadamat wixii khayr ay samaysay ma akharatna wixii shar ay samaysay inta waa lagu macneeyay tafsiir kale aad muhiim ah jira oo isagana lagu macneeyay oo ah ma qadamat wixii ma garanaysaa ay ifka ku samaysay xumaan iyo samaanba wa akharatna wixii ma garanaysaa taariikh xun ay ka tagtay waa arin aad muhiim runtii qofka taariikhta xun ka taga ifka iyo aakhiro way la soconaysaa qiyaamahana way ka nixinaysaa. الله سبحانه وتعالى مركز روحه الشيخ مركز أرنتها كورمي تذكر بلا آذنك ولا قرن إلهي سبحانه وتعالى مركز روحه كوري يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم تضرب إلهي كوري يا أيها الإنسان تضرب قال هذا ولوجه هذا بلدي وصح وأنا لوجه هذا dadka usaad ana waa loo jeedaa dadka muslimiinta ee macsiir sameeyay lafteeda waa loo jeedaa waa canaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala canaanayo markaas Ilaahay wuxuu ma gharraka dadow ma gharraka maxaa ku garabariyay kugu kidiyay rabbika alkariim rabbigaaga fiican maxaa kugu kidiyay kidis waa maxay kidis waxa laga wadaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala daacadiisa inaad seegtid Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad ka xiriir furmatid maxaa hadaba sababi kara qofku in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka xiriir furmado waxyaaba sababi kara waxa kamid ah shaydaanka ayaa sababi kara waxa kale sababi kara jahliga iyo qofka oo dhaqan la qabsada dhaqan aan fiicnayn ilaa hadii jeer islaamnimada dhaqanka wanaagsan ay taageertaa islaamka hadii jeer waxa uu dhow diinta islaamka qofka dhaqanka wanaagsan leh qofka dhaqankiisu xumaado ama aqoon darro ay hayso oo adduunyo aakhira midna aan garanaynin waxay dhacaan Ilaahay inay seegaan ayaa dhacda halka qofka aqoonta leh mar walba Ilaahay uu garan karo qodobka kale saddexaad ee Ilaahay qofka seejiyo waxa kamid ah inna nafsa la amaratu bisuu Ilaahay baa sheegay subhanahu wa ta'ala nafta xun iyo qofka oo ma garanaysaa dhaqan xun ay ku jirto oo naftiisa ay xun tahay oo asxaabtiisa ay xun tahay oo bulshadiisa iyo beecada uu ku xidhay ay xun tahay taasina way sababtaa si awgeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu diidan yahay qofka inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala garan maro wax kasta oo Ilaahay garan marinayana inuu ma garanaysaa uu la yimaado Ilaahay diidan way ka hadleen salafku way ka hadleen qarrigaas iyo quruurkaas iyo qofka Ilaahay garan maro Umar bin Khattab waa kii ugu horeeyay yiri ma garanaysaa Ilaahay waxay ku garan karaa wuxuu yiri jahl إلى هذه مكان يورن لابود إلهي محاكو قربري جاهل بان ورن لابود مركو عمر بن الخطاب عين كان ليه محاين إنه رسول مالين ورن ليه إنه قلنا بلادون نسقيمه عمر بن الخطاب وصحابه شدد بشاريه بعين كاله ميكرو علماء الإسلام كم يدوحوا هدي الله يورن لها عنيق أنا أقول في صدق السلام سيفرتي سوق بديا هدي الله يورن لها محاي إلهي كو قربري وحن ورن لها بوري كرم الكريم وحي قربري وأنا ورن لها بوري إلهي كريم نمديسه إلهي دلقات كيسه يسد إلهي سبحانه وتعالى يقدر قاطي حمانته مركب كوبد بادي لبا كوبد بادي صدح كوبد بادي بعد حمانته لا قبصته لكن هذو مالنته وربك قبن لها النار تفوقلي له marka karamkaas Ilaahay ayaa magaraysa ilu gooyi halka waxaan ka fahmnaa waraya nimcada Ilaahay qofku ilu gooysan waxa uu daliilayna nooca tahay saa la sheegayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay birabbika alkariim rabbigaaga fiican maxaa ku garab mariyay إلهي مقعد فربنا بولي القهار بولي القوي بولي العزيز بولي مقعد أود وين مجتنا يا بقاء إلهي مو استعمال سو بن آدم لك المقصنة هذا إلهي يقول الكريم الله كريم أنا واسو دوي مقعد وانا سبنا هو استعمالي كريم محل
كريم وحا لا يراهدا عده waxay bixinaysa aan eegin ee aan magarasa tirinin كريم waxa la yiraahdaa cida ay wax siinayso cida aan tirinin كريم waxa la yiraahdaa goorta ay wax bixinayso cida aan magaranaysa aan u tirsanayn كريم waxa la yiraahdaa cida wax ka soo la weydiisto bixisa intaas waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka كريم ba Ilaahay lagu tilmaamay subhanahu wa ta'ala bal Ilaahay wuxuu neceb yahay oo aanu jeclayn in isaga la garab maro cid kale wax la weydiiso ma jecla كريم wuxuu ka qabay magaciisa magacaas Ilaahay barbariga qofkii isoo ku soo dhaweeyay ku soo jiiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa kale كريم meesoo ku sheegay oo aayad kale ku sii xigta alladhi khalaqaka fasawwaaka fa'adalak Ilaahay subhanahu wa ta'ala garanaysan qofkii كريم meesoo Ilaahay waxa kale tabi Ilaahay alladhi khalaqaka wa Ilaahay ku abuuray Ilaahay uma qoran arj aabay hooyadana uma qoran adiguna uma qoran u fiirso wala qof walaal waxa laga yaabaa inaad isteel tahay oo Facebook ay lambar mobilkaagu shaashada lambar u yaalo sawirkaagu yaalo sawir aad u qurux badan sawirka Ilaahay ayaa ka dalbay inaad qof noocan noqoto shakhsiyadaada isku qanacsanay aqoonyahanka ee magacyada fara badan la baxay ee bulshada kaalinta kaga jira yaa dalbay saykeeda malaha u fiirsa aayada alladhi khalaqaka wa Ilaahay ku abuuray marka horeba fasawaaka ee hadana dadka kugu daray ee ku dheeli tiray sidoo Ilaahay ku dheeli tiray laba indhood ku sameeyay laba dhagood ku sameeyay waxaan aad jeclaysanaysaa inaad sawir ku شيء أمانة سيد بشدة وإيمان سيد حفلات كقريب جلس يقرح ضن يستاهل كل إلى ما كوسمي تطبق قدر علماء الوحيد هذا نقول بس صحابة ما كان معناه ليه معناه فسواك هذان إلهي كادي المحادي لها واحد لها إن أنت نقف كنقطة أنت ندميرات كنقطة إن أنت نقف كنقطة أنت نبهلات كنقطة أي دعكر لها لكن الله سبحانه وتعالى كادي مدتك كل حجة مركز دعك كان هذا نكأه تتكلف تجيس السيك إلهي نوسمي سو كان هو يفعل حمان كرا إلهي سبحانه وتعالى كدغ لا إنه صدق عمودي سمايو إنه مقرنسا صدق حدودي سمايو إنه صدق حدود كو سمايو إنه أي دحي كر لهي إلهي سبحانه وتعالى تا كمو دغين واي waxaad noqon lahayd maanta hadii taasi jirto qof si u qurux badan sina uqdadaysan baad noqon lahayd taamiyad ka raacay noqon lahayd Ilaahay baa dadka kugu daray Ilaahay baa dadka kaala badigay Ilaahay baa isku ka qanciyay Ilaahay baa ku qurxiyay cidina ugu horreeyay cidina كما يطلبني وأن الله سبحانه وتعالى أوجاته إله سبحانه وتعالى مركل وحرعي الذي خلقك فعدلك وإله ليل التري إيه كفر الصوت قف قعمي ساس وليل التري فريس ويسوي ليل التري فرب الله ولسه كون لك أنت إيه مدرسة قعمي ويسوي ليل التري لقيس ويسوي ليل التري درر كيسة يحبنيه وسداء خف المويل ليل التري ومع ذلك هذا نوفر صوت قف لمدي مشري حاجة بيقول بكو سعادة الذي خلقك وإلهك أبوري فسواك تطلق وضري فعدلك كل تريكم ميسامي في أي صورة ما شاء ركبك إنسان عليك كو غارن سميه وددكو أنت كدوانت يا والله يا كلا waxa kamid ah roos fiirsado qof lamid ma jiro walaw ay dhici karto in dadku is shabahaan oo dadku tafiirtoodu is shabihi karto tafiirtii hore ee awooyaasha la shabihi karo way jirtaa taas laakiin hadana cid lamid ah oo aan qof laga soocayn oo meel walba kala mid ma jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba'adi fi ay surati ma sha'a rakabaka في أي صورة ما شاء ركبك صورة جارة أو إلهي كودوري أو ولبا قروح بدن أي إلهي سبحانه وتعالى إسقك أجي أي إلهي سبحانه وتعالى معناه وحياة الله يأكل وحكم إذا إلهي يقف لقرنا صنايع إلهي يصدق